Sheekada Laylo aad iyo aad ayay u xanuun badan tahay. Sheekadan oo baryahanba maxaa lahay labadan maalmood TikTok haysatay. Intii aan ogeyn kusoo dhawaada horta sheekada Laylo first one kadibna wixii ra'yigayga ayaa ka dhiiban doonaa. Laylo waxay ku dhalatay Ingiriiska meeshaas oo ay maxaa lahay hooyadeed ayadoo yariis yacni oo sanad aan gaarin ayay dhalatay Ilaahay ha u naxariisto. Kadib habaryarteed oo isla Ingiriiska joogtay ayaa Laylo korsatay. Dhowr sano kadib waxay u soo guureen waddanka Holland. Kadib haddana Holland marka sidii ay u degnaayeen kadib Holland ayagoo degan waxay go'aansatay habaryartii Laylo korsatay inay Laylo keligeeda Soomaaliya u soo celiso. Soomaaliya u soo celisay Soomaaliya markay u soo celisayna waxay u geysay walaasheed oo ayada ka yar. Markay walaasheed u keentay Laylo markaas waxay jirtaa 12 sano meelahaasay jirtaa. Soo ma oga sababta loo soo celiyey waxa loo soo celiyey wax laga damacsan yahay. المهم ما أيش الشيء يعني صارت كأي جرت حلقة ويل يعني هبرت الدراي لكن وحي شيء هبرت لوكي كدب إن ويل كهبرت الدراي مركي ويل كهبرت الدراي سيدنا محلها هي هبرت يو ويل كده يو أي لون هرب ولا يكون قدام حتى هل جوري إيه لسيدتي ماشي وحنا كبدنا وحيد هاي ويعني سور بعدين تاسي وحصل كمان طبعا يعني المولد ده أبوس يوم محلها si xun in loola dhaqmaayo waxaa la dhihi jiray dhahday cuntada kari mana cunaysid marmar waxaa la dhihi jiray musqul ma galaysid yacni waxyaalahaas wallaahi yacni waxay noqdeen aniga ahaanteyda wax maskaxdeyda ka weyn soomaali ilmaha way jiraa wayna carabta laakiin wax oo gumeysi ah oo subxaan allah gumeysi haddana qofka maskaxda laga diyayo wallaahi soomaali waxa ku jiro yacni dad wanaagsan way leeyihin laakiin المهم waxay dhahday gumeysiga iyo dhibka iyo rafaadkiisa uu ku jiray waxay dhahday Laylo goobtoon caruur ku dhashay hadda Laylo ninka iyada kala tagay in kala weli ma aysan sheegin sheekada wax nin ku saabsan ma aan maqlin laakiin hadda waxay dhahday goobtoon maalin iyo dhibaato fara badan kadib waxaan go'aansaday dhahday aan cadaalad raadsiyo cadaaladna waxay u soo raadsatay social media Soomaalida waxay rabtaa Laylo intay dib ugu laabto waddanka Ingiriiska ee ku dhalatay oo intaas maxaa hooyadeedna ay meesha ku dhashay yacni ayadoo dhowr sano jirta laga soo celiyey laakiin waxay rabtaa inay dib ugu laabto si ay u hesho nolosha hadda markay rafaadka ay ku nooshahay nolol kasii qurux badan habaryartii waxay dhahday markasta aan la hadlo waxyaalahaas aan kala hadlo waxay dhihi jirtay dhahday ma aqaano adiga ma aan tahay waxyaalaha la yaabka habaryartii Laylo soo qorsatay waa ilaa iyo 12 sano soo guureysay markasta waxay dhihi jirtay dhahday ma aqaani waxa aad ka hadlaysay waxaa ka sheekeynaysa soo habaryartii hadda markii sheekadii social media qabsatay oo liska qabsaday waxay ictiraaftay in ay ayada tahay habaryarteedii maxaa lahaayay Laylo walaasheed hooyadeed ee la dhalatay sorry waxay sheegtay in hooyadeed ee la dhalatay ay tahay habaryarteed awal intaas way inkarsaneed inkastoo kiiska intii kala xitaa ay weli ay inkirayso ay leedahay maxaa lahay Ingiriiska waa joogi jiray laakiin waxaas inaa ka hadlo yacni si jas camal ma rabi inaa ka hadlo meelaan joogi iyo meelaa ka tegay iyo waxaas waxay asaanay ay quseeyaan ilaa iyo hadda habaryarta yacni maxaa lahay ma qiranin dembiga intaa la eg ee gabadha ay ka gashay maxaa lahay sharcigeediina ay qof kaleeto ay ka iibsatay habaryarta waxay ahaan jirtay dadka maxaa lahay baasaboorada dadka ku qaada Soomaaliya oo maxaa lahay leemanka yacni dadka ku qaaday ahaan jirtay kulay waxaa looga shaksan yahay leenkaas iyo gabadhaas baasaboorkeeda iyo waxaas dhan inay mar hore iibsatay waana macquul wax ilaa iyo hadda yacni yaalaayo ma jiro soo Laylo insha Allah biidnillah waxaa u rajaynayaa cadaalad Soomaali weyna inay garab istaagto oo gabadhaas maxaa la dhahayay sidii meesha looga soo wadi lahaa yacni maxaa la dhahay oo cadaalad lagu raadin lahaa baasaboorkeedii waxeedii nolosheedii yacni maxaa la dhahay qof yacni waddan oo hormaray saacaddan ku noolaan lahayd inkastoo Soomaaliya waddankeen uu yahay oo wada jecelnahay haddana Soomaaliya maxaa la dhahay waddan cadaalad taasho ma ahan halahaasoo dhibaato waxay ku martay waddankeeda Soomaaliya maanta hadday raadsatay xitaa dowladda ay ka raadsatay xitaa cadaalad ma u malaynaysid in cadaalad loo soo helayo gabadhan no kiiskeeda meeshaas ayaa lagu afjarayaa cid hadalkeeda dhulka ka soo qaadaysa ma lahan laakiin hadday joogto waddan shisheeye waxaa laga yaabaa in cadaalad ay hesho sharcigeedii iyo waxeedii dhanna ay hesho videogan marba intaa hadda soo gaarteen
meel dheer gaarsiiya sheer gareeya